أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم. أولنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome back again to Ashraf Academic Online. kusoo dhawaada Ashraf Academic Online. waxaynu soo daashiradeena taxana ahay hadii ay maalintii kuugu horeysay oo aadna soo booqatay fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka like noo saarto si uu dad badan u gaaro. maanta waxayna qaadan doonaa cashirka aad u xiiso badan. cashirkeen wuxuu ku saabsan yahay topic about mother, mawduuc ku saabsan hooyo ayayna qaadan doonaa. topic about mother, mawduuc ku saabsan hooyo. okay, hadii aan gudo galno mawduuceena. okay, my mother, hooyadeeda is the best gift from Allah. waa hiibad Allah igu deeqay. my mother, hooyadeeda is the best gift from Allah. waa hiibad Allah igu deeqay. she takes care of waxay daryeeshaa everyone in the house, qof walba oo guriga jooga. okay, my mother is the best gift from Allah. waa hiibad Allah igu deeqay. she takes care of waxay ka taxadirtaa everyone in the house, guriga qof walba oo guriga jooga. she takes care of waxay daryeeshaa everyone in the house, qof walba oo guriga jooga. she takes care waxay daryeeshaa waa dhigi kartaa waxay ka taxadirtaan waa dhigi kartaa isku mid waaye daryeel iyo taxadirba. she takes care waxay ka taxadirtaa of everyone in the house, qof walba oo guriga jooga. she gets up waxay soo toostaa waxay soo toostaa early in the morning, subaxdii aroortii. early in the morning, subaxdii aroortii. everyday maalin walba. she cooks waxay karasaa delicious food, cunto macaan ayay karisaa. she cooks waxay karisaa delicious food, cunto macaan ayay karisaa. for waxay u karisaa us, anaga ayay noo karisaa. for us, anaga ayay noo karisaa. she gets up early in the morning waxay soo toostaa subaxdii aroortii. everyday maalin walba. she cooks waxay karisaa delicious food, cunto macaan ayay karisaa. delicious food maxaa waaye? cunto macaan ayay karisaa. for us, anaga ayay noo karisaa. for us, anaga ayay noo karisaa. she is very loving waa mid aad u jecel and hard working oo aad u shaqeyso. she is very loving waa mid aad u jecel and hard working oo aad u shaqeyso. she is very loving and hard working waa mid aad u jecel oo aad u shaqeyso. my mother, hooyadeeda is my first teacher waa macalinkeyga ugu horeeya. my mother, hooyadeeda is my first teacher waa macalinkeyga ugu horeeya. she teaches me waxay i bartaa good manner, dhaqan wanaagsan. she teaches me waxay i bartaa good manner, dhaqan wanaagsan ayay i bartaa. my mother is my first teacher waa macalinkeyga ugu horeeya. she teaches me waxay i bartaa good manner, dhaqan wanaagsan ayay i bartaa. my mother, hooyadeeda is my best friend waa saaxiibkeyga ugu fiican. my mother, hooyadeeda is my best friend waa saaxiibkeyga ugu fiican. I tell waxaan u sheegaa all my secret to my mom. hooyadeeda ayaan u sheegaa sirteeda oo dhan. I tell waxaan u sheegaa all my secrets sirteeda oo dhan to my mother. hooyadeeda ayaan u sheegaa sirteeda oo dhan hooyadeeda ayay u sheegtaa. okay, she is the most important person waa qofka ugu muhiimsan. she is the most important person waa qofka ugu muhiimsan in my life ee nolosheyda. she is the most important person in my life waa qofka nolosheyda ugu muhiimsan nolosheyda. I love my mother very much. hooyadeeda aad ayaan u jeclahay. I love waan jeclahay my mother, hooyadeeda very much aad ayaan u jeclahay. okay, haddii aan soo dul marno. my mother, hooyadeeda is the best gift from Allah. waa hadiyad Allah igu deeqay ama waa hiibad Allah igu deeqay. she takes care of waxay daryeeshaa everyone, qof walba in the house ee guriga jooga. she gets up waxay soo toostaa early in the morning subaxdii aroortii. everyday maalin walba. she cooks waxay karisaa delicious food, cunto macaan ayay karisaa. for us, anaga ayay noo karisaa. she is very loving
aad ayay u jeceshahay waa mid aad u jecel and hard working oo aad u shaqeysa. My mother hooyadeyda is my first teacher waa macalinkayga ugu horeeyay. She teaches me waxay i bartaa good manner dhaqan wanaagsan ayay i bartaa. My mother hooyadeyda is my best friend waa saaxiibkayga ugu fiican. I tell all my secrets waxa sirteyda oo dhan u sheegtaa to my mother hooyadeyda. She is the most important person waa qofka ugu muhiimsan in my life ee nolosheyda. I love waan jeclahay my mother hooyadeyda very much aad ayaan u jeclahay. Okay, intaas ayaan idigu soo talagalay. waxaan filayaa inaad ka faa'iideen. haddii aad ka faa'iiday oo aad muuqaalka dhammaadkiisa nala imaatay fadlan laagta nagu dhiirigeli. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.